ma taqaanaa ninka ugu nasiibka xun Soomaalida maanta nool waxaan rabaa inaan kuu sheego saddexda qof ee ugu nasiibka xun Soomaalida maanta nool ninka koowaad ee ugu nasiibka xun Soomaalida maanta nool waa 60 jir 70 jir 80 jir qurbo ku nool una soo shaqayn jiray dawladda Soomaaliya oo madax ka ahaa dawladda Soomaaliya nolol fiican ku haystay laga yaabo inuu qaadan jiray mushaar ku filan laga yaabo ciyaalkiisu inay waxbarasho lacag la'aan haysteen laga yaabo ciyaalkiisu inay haysteen caafimaad lacag la'aan kadibna markuu nolosha inta tirada leeg helay ay u qalmi weyday ama u cuntami weyday oo ka doortay qabyaalad iyo musuqmaasuq kadibna dawladdiisii ka takhalusay riday kadibna qurbo soo galay markuu qaxooti soo maray oo ku soo rafaaday ka bacdi qurbo soo galay qurbaha markuu yimidna aan ahayn nin dhalinyaro oo shaqaysan kara iyo nin dhalinyaro wax baran kara guri ku xiran qol ku xiran horeyna uu baraf ka soo galay daaqadana baraf ka soo galay meel uu dhaqaaqa aan lahayn taasoo ay u sii dheer tahay dembigii uu ka galay ummadda Soomaaliyeed saqiir iyo kabiir maantana maraya xilli uusan qof bini'aadanihi dawlad la'aan noqon karin da'dii marahaya da'dii uu qofka bini'aadanka ahi ugu tabarta yaraa ama ugu baahida badnaa oo ah sana 60aad sana 70aad iyo sana 80aad ninkaas Soomaaliga ah ee odaga ah ninka nasiib daran ee maanta nool inuu jiro u maleyn maayo waxaan idin la wadaagayaa ninka labaad ee Soomaalida ugu nasiibka xun ee maanta jooga